xalay toosaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya Defence Force iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee baryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakuleysay ee ay qoodinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaado oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba ilaa dii qori dhacayee oo ah wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan in aanu halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray sida loo jabiyay baan rabaa in yar inaan idinka brief gareeyo ama idinka tilmaamo kow horta xoogga dalka Soomaaliyeed Somali National Army ciidamadeenu way diyaarsanaayeen mar walba waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jaha kasta diyaar garowgaasi wuxuu baajiyay ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqeynayeen cadowga iyo cadow kalkaalka muddo dheer waxa kale oo nimanka jabiyay shacabka Soomaaliyeed oo naf iyo maal isla barbar taagay ciidankooda xoogga dalka oo u hiiliyay cidda shacabku raaco ayaan baanan bar walba guushan tan saddexaad ee araxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha la soo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyadu haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo way ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen waxba laga yaabaa qolays lahayd mar una magaalada tagteen in iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamaya sidii ay wiilashiisu soo dhiibeen morally may haynin ay ku dagaalamaan moral la'aantaasina iyo niyad la'aantaasina waxay keentay in ay jabaan oo ciidanka aan niyad haynin ma guulaysto kumay qanacsanayn dalkaaga ku duul hooyada ku duul walaasha ku duul gurigaaga ku duul kumay qanacsanayn sababtaana way u jabeen qasaare ba'an ayaa loo geystay fallaagada sidaan hore u sheegay waana ciidan badan baa laga qabtay iyagu qasaare noocay geysteen sida caadada u ahayd marka qofka fallaagaahi uu ogyahay inaanu ciidanka la dagaalami karin waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal waan naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dawladda dabada kaga soo jireen
oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyayaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladooda hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer balad xaawo ah oo la garanayo ayaa 5 caruur ah iyo hooyadood laga wada dilay oo it's a very very sad aad u qalbi jaba waan u tacsiideynaya qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee balad xaawo ee caanka ah sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay waa barnaamijkii dawladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka waliba khaasahan shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Somton ay in badan kula dagaalamayeen in Hormuud la burburiyo ma aha wax ka yimi aqliga wiilasha waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkadu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen waase laga guuleystay waxaan rabaa inaan baaq u diro nabadiidka ilaa shalay waxa ogeydeen oo iyadu dawladuna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaan saakaba warbixinta ku soo saaray waxa soo dhameeyay waxay muujinayaan Soomaaliya is under attack Soomaaliya lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeena shacabkeena iyo dawladdeena waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan waxaan baa ku dirayaa wiilasha la soo qalday inta ka hadhay ee xuduudda dib uga talowday inay ku soo noqdaan ciidoodii calankoodii dawladdoodii iyo guryahoodii diidaanna inay fawdo sameeyaan oo ay dalkooda khalkhal galiyaan waa mahadsantihiin su'aaluhuna waa idiin furan mar haddii dagaal dhaco dagaal waa taqaanaa laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii hore ka sii tababushaysteen marka ciidanku ka sii tababushaystana waxa yaraanaya ama aan dhacaynba khasaaraha ilaa hadda riboodyadaanu haynaa dhaawac kana soo gaaraya waan anigan haya sawirradana waan idin tusayaa madaafiicdii iyo hoobiyaasha isticmaaleen waa kuwan ay ku xasuuqayeen jabhadda iyo Kenyaatiga wada socda waa missileskaas aan idin tusayo marka ciidanku way ka feejignaadeen laakiin cid ay aad wax u yeelayeen waa shacabka waxa qaadaya cidda xalayto saqdii dhexe iyadoo la hurdo oo hooyooyinka iyo maatida iyo caruurtu ay hurdaan soo bilowday madaafiicda soo bilowday hoobiyaasha soo bilowday missileska ee xuduudda ka soo talowday ee dagaalka qaaday ee dagaalka bilowday haddii dagaalku meel kale ka dhicilaa waxaad weydiin lahayd su'aalo kale laakiin ilaa xalay waxaan ku jirnay difaac iyo badbaado waliba marka askariga Soomaaliyeed uu difaacayo waa askari dawladeed sababta aan sawir u soo bandhigi karin askari waa sababta dawladnimo ay jirta wuxuu ilaalinayaa hantida wuxuu ilaalinayaa shacabka wuxuu ilaalinayaa qofkan la soo khalday walaalkii laftiisa inuu qabtuu rabaa inuu dilo mar rabo marka waxa qaadaya cidda soo duushay cidda amarka soo bixisay cidda desperation ka ah ee rabta inay dalka khalkhal galiyaan si aan dalku doorasho waayo Jubbaland waa maamul waa federal member state waanad ogtahay xaaladeeda iyo heerarkay soo martay heerarkeedii doorashada heerarkeedii ciidanka heerarkeedii dhismaha dawladduna waxay mar walba diyaar u ahayd wada shaqaynta heshiiskii lagu galay 17 September madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam baa saxaxay in doorasho dhacdo oo ay ka dhacdo Garbaharre iyo Kismaayo wixii intaa ka badani waxaas waa siyaasad waa wada noolaansho waa dastuuri laakiin dagaal saq dhexe la soo qaado oo madaafiic lagu soo bilaabo oo hoobiyaal lagu soo bilaabo ma aha qadiyad Jubbaland waa qadiyad shisheeye hadda marna weerar baa tahay marna difaac haddaad leedahay hays difaacina ee isdhiiba taasi waa meesheeda laakiin we will never surrender isma dhiibayno dalkaanu difaacaynaa ciidaanu difaacaynaa calankaanu difaacaynaa wixii aan u dhaaranay oo ahaa jiritaanka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed ayaanu difaacaynaa mana hal taako ka mid ah dalkana kama tanaasuleyno mana u ogolaanayno in shisheeye ka taliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Somali National Army iyo maamulka gobolka Gedo ayaa gacanta ku haya awalba iyaga gacanta ku hayay maamulayay shacabkoodii iyagooda wada jiray maamulayeen wada shaqaynayeen wada noolaayeen wada faraxsanaayeen aad iyo aad laakiin duulaankan dhacay ayaa mushkilada duulaanka kaliya ma aha duulaamadu waa farabadan yihiin xitaa waxa jiray hub culus oo la doonayay in xuduudaha oo dhan laga soo khalkhal geliyo dalkani 91 buu burburay mar dambe ma ogolaanayno annagoo nool oo taagan in hub lagu burburiyo banaanka laga keeno iyo jabhada banaanka laga keeno waa mahadsantihiin
سؤال بنتسين أنت أساسين وماشي أنه هذا كده بتشرنا ماشي لقى كياني ماشي لجوه ده وحي أردن بأنه كده بتشرنا investigation يبقى عارف مع صعوبة وحنا دوان صوب نقدرنا هل كلاجا صو صاري هو كها فرهبة هو كما وحنا شيءنا وحفظ وهو بعض علوس ولا الربيد ده كان إن مر لبعض لجو رجو لجو قحيو لجو بربريو قف صوماليات أمد دلك هاتشوجة أمد بيت هاتشوجة والرباط دل كان إن حل حريق ودن بجانا أنا ما شرته وكده بتشرها وأنا لقول حساب تما يا شرع جنا ولا وركينا يا هذي وحكي وصوتنا وحي statement كيوجو ريو عن صوص عرنا قرال كمان باريس تبان ودنا هم كوين أوجانو هل كوكيمي يل هل كوجودنا بيسوق السعودية صوت أنا وحنا لنا هاي سيستم العالية هبكا إلا مركا هب كدال كسوق لي إلا مركا لكيدنا يو تن ما أنت دعدي ومد لوجود ترى علي إن مرد كلام العركي إفتين كدولة نمو ومد الصومالية والصباحي إلا الدميو يريدون أن يطفئوا نور الله وحي الربان إن النور كدولة نمو يرى صباحي دميان إنه ميلينه وأنا نولاننا وأنا ترينا قرن كيننا ونسمع يوانو تسقاضي أدب وما تنسي